ardayda Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xerooyinkan qaxootiga ee dhadhab gaar ahaan kuwooda dhigta dugsiyada sare ku yaala xerooyinkan ayaa waxay dhibco wanaagsan ka keeneen imtixaankii fasalka 12aad ee sanadii tagtay ee 2016 munaasabad balaaran oo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiinaya ardaydan ayaa waxaa lagu qabtay gudaha iskuulka Bushra oo ah iskuul sare ahna iskuulka ee ardayda dhibcaha wanaagsan ay ka soo hooyeen ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulka iskuulka qaybta secondary-ana waa qaybtii labaad ka dhameysay dugsiga sare iskuulkan ku faraxsanahay ardayda dugsiga sare dhameysay sanadkan waxaa ka mid ah arday galaaska labaad iyo galaaska koowaad nagala soo bilowday dugsiga hoose hadda kuwa form 4-ka ah waa ardaydii halkan qaarkood wax loogu bilaabay inaan ku noqono county number koowaad ama numberka labaad marka loo fiiriyo xaaladda guud ee waddanka iyo sida ardayda u sarreeyeen markaska ardayda sanadkan 2016 waa ardaydii ugu fiicneed ardaydii ku xigtay 6 sano la soo dhaafay naasiriga ku bilaabay marihii طبعا waa arki kartaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku mahadsan طبعا dadaalkii aad soo sameyseen iyo waqtiga aad soo bixiseen baa halkaa lagu gaaray dhanka kale qaar ka mid ah waalidiinta oo iyaguna dareenkooda cabiray ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa rabbil caalamiin ilaahay waa mahad iskale midnaha hadda wax dheeri oo hadda aan sheegayo ma jirto laakiin macnaha farxadeeda ayaan qarin waa inaan macnaha idin tusiyo sida aan u faraxsanahay iyo macnaha nimcooyinka ilaahay na siiyay iyo guulaha aan soo qabanay ugu dambeyntii qaar ka mid ah ardayda ayaa waxay cabirayaan dareenkooda iyagoo dhanka kale ka codsaday dowladda federaalka ee Soomaaliya inay deeq waxbarasho u fidiso ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata xerooyinkan magacayga waa jaamacada Hiirad sanadkan ka baxay dugsiga sare waxaan aad ugu faraxsanahay anigoo jooga intii xerada dheera inaan haddana higsiga lahaa aan gaaray oo ahaa inaan si kadib dhameeyo iyadoo aan waxbarasho lacag la'aan sida waddanka oo qaali iyo qaali ahayn aad baan ugu faraxsanahay sidoo kale halkan waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan waalidiintayda iyo maamulka iskuulkayga waxaan alaalayo waxaan bartana waxaan rajo weyn ka qabaa inaan ku anfaco dadkayga iyo dalka insha Allah oo aan aad u rajaynaya insha Allah ta'ala السلام على دمان مسلمين ماشي Soomaali meesha joogto horta dadka bilaa magacayga Firdawsi Maxamed Yuusuf waxaan diganahay dugsigan Bushra oo ku yaala qaxooyinka dhinaca Dadaab taasi ahaato waxaan ku jirtay sanadkan 2016 bagay konfoogan alxamdulillah reedkan kaanu ma sha Allah ku fiican waxaan rajaynayaa next year inaan ku jongareeyo this year waliba inaan ku jongareeyo university maanta qaxooyinka waxa uu ku qorno waxbarasho baan ka helnaa waxbarasho zaid sabab marka dawladda Soomaaliya waxaan ku codsan lahaa deeq waxbarasho inaan u sii deeqdo insha Allah xarooyinkan qaxootiga ee dhadhab ayaa wax ka barta arday tiro badan oo Soomaaliyeed oo marxalado kala duwan oo dhanka nolosha ku barta balse go'aankoodu uu yahay waxay bartaan inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo ee Soomaaliya Ahmed Maxamed Cabdullaahi iyo gol raadiyaha TV-ga qaranka Soomaaliya xeryaha qaxootiga ee dhadhab